In ka badan dad gaadhaya 40 qof oo Soomaali ah ayaa la sheegayaa in lagu wado maalmaha soo socda in laga soo tarxiilo ama laga soo celiyo dalkaasi Mareykanka, kuwaasoo la keenayo gudaha dalka Soomaaliya. Dadkan ayaa la sheegayaa inay ku jiraan Soomaali tiro badan oo caan ah. Sanadihii dambe waxaa sii badanayay tirada tahriibayaasha Soomaalida ee ku wajahan dalka Mareykanka, kuwaasoo si la mid ah tahriibayaasha caalamka ee kale safar ku sii mara qaaradda Koonfurta Ameerika, waxaase dadka qaarkood dib loogu soo celinayaa dalkaasi Mareykanka iyagoona dib loogu celin doono dalalkii ay ka yimaadeen. Weliba Soomaalida ayaa la sheegayaa in haatan ay gaadhayaan 40 qof, isla markaana ku jiraan xabsiyada dalkaasi, kuwaasoo dhowaan la filayo in laga soo dejiyo magaalada Muqdisho. Intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa hoos u dhac ku timid tirada tahriibayaasha ee Soomaalida u hanqaltaagay dalkaasi Mareykanka inay galaan, balse markii uu ku guuldareystay dib u doorashada waxaana soo laabatay qulqulkii. Isla markaana waxaa la arkayay Soomaali tiro badan oo ka gudbaya xuduudaha dalkaasi la leeyahay Mexico ku socda dalkaasi Mareykanka. Dowladda madaxweyne Joe Biden waxay meesha ka saartay mamnuucidda dalal ay Soomaaliya ku jirto oo laga saaray safarada Mareykanka, balse dadka tahriibka ku gaadhaya dalkaasi ayaa qaarkood ku guuldareystaan in la aqbalo isla markaana ay sharciyo helaan, kuwaasoo safar dheer soo maray isla markaana qaarado badan soo jeexay ayaa haddana nasiib xumo waxa ay waayaan inay helaan sharci. Soomaali tiro badan oo gaadhaya 40 qof ayaa hadda la filaya in dowladda Mareykanku ay u soo tarxiisho Soomaaliya. 40 qof ee Soomaalida ah ayaa waxay hadda tarxiil ku sugayaan xabsi ku yaala gobolka Mississippi ee dhaca koonfurta dalkaasi Mareykanka. Dadkan tahriibka ah ee kasoo tallaaba xadka Mareykanka uu la leeyahay Mexico ayaa waayadii hore marka maalmo kooban lagu hayo goobo dalkaasi ku yaala, kolka dambe la sii dayn jiray, balse hadda waxaad moodaa inay taasi isbedesho meesha ka baxday, kuwaasi oo xabsiga lagu sii hayo. Haatan waxay wararku sheegayaan in dadkaasi la geeyo xabsi lagu sii hayo inta lagu soo celinayo wadamadii ay ka yimaadeen. Dadka la soo celinayo waxaa ka hadlay qareen Soomaali ah lagu magacaabo Maxamuud Muuse Xasan, lana hadlay laanta afka Soomaaliga BBC ayaa uga warramay sidoo kalena sharaxay sababta dadka qaar dib loogu soo tarxiilayo iyagoo soo maray tahriib aad u dheer. Dadka marka xabsiga la geeyo waxaa laga yaabaa in qaarkood dib loogu celiyo Soomaaliya maadaama ay magangelyada ay qorteen aysan ahayn mid xoogan, waxyaabihii la weydiiyeyna iyo weliba su'aalihii la weydiinaya cabsi awgeed ay wax uga khaldameen. Qareenka oo hadalkiisa sii watana oo BBC ugu warramaya ayaa sheegay in dadka magangelidoonka qaarkood aysan fahamsanayn sida dacwadda loo samaysto, taasina ay tahay sababta ugu weyn ee dadkan loo soo tarxiilayo. Dabcan marka dacwadda la qoranayo waa in dacwaddaadu tahay mid xoogan oo caddaynaya dhibaatadii aad ka soo carartay iyo weliba dhibkii aad ka soo guurtay, ayuu sii raaciyay qareenku hadalkiisa. Dhowrkii sano ugu dambeeyay waxaa Mareykanka ka taagneyd xiisada la xidhiidha dadka soo galootiga ee Soomaalidu ka mid tahay, waxaana gobolada qaar ay ka cabanayaan tirada tahriibayaasha oo aad u badanaya. Bishii Sebtembar 2 bas oo wada tahriibayaal ayaa laga kaxeeyay gobolka Texas. Dhammaan dadkaasina waxaa lagu hordaadiyay bannaanka hore guriga Washington uu ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris. Amarka dadkaasi lagu geeyay gurigaas Harris oo uu bixiyay gudoomiyaha gobolka Texas ayaa yimid kadib markii ay xoogaysatay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay tirada tahriibayaasha ee soo badanaya. Gudoomiyaha gobolka Texas oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in tallaabadan ay si ula kac ah u sameeyeen ay ku dalbanayeen inay dowladdu ay keento siyaasad cusub oo lagu xakameynayo dadka soo galootiga. Murankaas ayaa ilaa hadda taagan xilli ay dad cusub oo malaayiin ah ay ku sii qulqulayaan xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico. Xilligan uu Mareykanku sheegay inuu Soomaali gaadhaysa 40 qof uu ku soo celin doono dalkaasi Soomaaliya isagoona ka soo tarxiilaya dalka Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaali badan ay u hanqaltaagayso inay tahriib ku galaan dalkaasi Mareykanka, kuwaasoo u sii mari doona wadamada Latin America isla markaana uga sii gudbi doona wadanka dalkaasi Mexico uu la leeyahay xuduudda dalka Mareykanka. maaha markii u horeysay oo Soomaali tahriib ku gashay dalkaasi Mareykanka uu soo celiyo kaasoo laga soo dejiyo caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho.
kal hore ayay ahayd markii Soomaali gaadhaysa 150 qof kuwaasoo laga soo celiyay dalkaasi Mareykanka lagaga soo dejiyay magaalada Muqdisho isla markaana ku galay dalkaasi Mareykanka taariiba.